السلام عليكم. سلام كدب waxa igu dhacday qisas jacayl waxa ku bilaabanaysaa sidatan magacayga waa Faadimo waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho waxaan jacayl u qaaday wiil la dhaho Cabdiqani Cali waxay ahayd 5 Abriil 2019 waxaan isku baranay gaari ama caasi aan wada saarnayn run ahaantii wuxuu ahaa wiil aad ii soo jeetay xitaa gaariga waxaan ugu tagay meesha uu asigu ugu tagay si aan u ogaado magaciisa nambarkiisa iyo meesha uu ku nool yahay waxa ka codsaday inaan isbarano wuu i soo dhaweeyay bilooyin aan ku wada soconay xiriirka saaxiibtinimada kadib waxaan ka codsaday xiriirkeena inaan u bedelano jacayl nasiib daro wuu iga diiday sababta markii aan weydiiyay wuxuu ugu dhahay wax jacayl hadda aniga diyaar u meeyay habeenkaas wixii ka dambeeyay waxa ila soo diristay murgo iyo walwal jacayl oo xitaa cuntada aan ka go'ay laba maalin kadib ayaan ku arkay wado isxog wareysi kadib waxaan dhahay weli meesha ma taagan tahay wuxuu ugu dhahay haa abayo aniga jacayl diyaar u meeyay markaas kadib ayaan ka codsaday inaan israfno aan wada caawino alxamdulillaah way igu ogolaaday galab ayaan isku raacnay beerta banaadir sheekooyin goosgoos ah kadib waxaan weydiiyay su'aal aan jawaabteeda in badan u baahnaa waxaan ku dhahay maxaa u diidaysaa markaas ayuu qiso iiga sheekeeyay intuu qisada iiga sheekeynayay ayaan iska ilmeeyay xitaa kama warqabi xilliga ay ilinta iga imaantay waxaa ka war helay asagoo iga tirtiraayo asaga wax ilina kama imaan laakiin qofkii arko wuxuu dareemayaa inuu qalbiga xanuun ka dareemayo waxaa ku dhahay maxaa u ilmeeweysay run ahaantii su'aasha aan weydiiyay waan ka xumaaday wuxuu ugu dhahay wax iima soo kordhinaysa inaan ilmeeyo hadalkaas ayaan aad ugu qancay maalin aan guriga eedo booqasho u tagay ayaan waxaa isku aragnay xaafadda eedo oo eedo aabbal dhalatay ayay badiris ahaayeen dhammaan wixii meesha fadhiyay ayuu salaamay sidoo kale meesha ayuu soo fadhiistay waana wada sheekaysanay weliba si qurux badan galabtii uu jaamacadda ka soo laabtay anigoo markaas bannaanka iska fadhiyo ayaa waxaa arkay asagoo gabar la taagan waxaa garan waayay xilliga aan meesha tagay isla markiiba gabadhii ayaan ku booday kadib ayuu ani i qabtay intaa kadib xaafadda ayaa la iska soo baxay buuq dheer kadib waa la kala tegay intuu i soo wacay ayuu i weydiiyey waxa qaldan markii aan u sheegay ayuu i dhahay waa qaldan tahay ee gabadha raaligeli markaas ayaa si kaftan ku dhahay waa jeceshahay miya wuxuu ugu dhahay haa dhammaan asxaabteyda waan jeclahay dartiisa asxaabtii iyo xitaa waxyaabo badan naftii ku saabsan waa ku ilaabay keliya waxaan ka fikiraa asaga sidii aan ku heli lahaa habeenkii qofka ugu dambeeyay aan waco waa asiga subaxii marka aan soo kaco qofka ugu horreeyay aan waco waa asiga dareen kasta waa tusay wuu iga aqbali waayey maxaan sameeyaa waa wiilka keliya aan jacayl u qaaday waa maasantiin dhammaan familkayga qisadan waxay ku dhacday gabar ka mid ah asxaabta ku xiran youtube-ka qalbi lumay mar kale waxaan idin leeyahay waa maasantiin